agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Geedi Caynaashe oo warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu waramayay xafiiskiisa ayaa ka xog waramay waxyaabihii uu qabsoomay hay'addaasi iyo dadaalada xooggan ee hay'addu ugu jirto ilaalinta tayada waxyaabaha dalka dibadiisa laga keenayo dalka iyo wax soo saarka warshadaha Soomaaliland. waxa uu xusay agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Geedi Caynaashe in waxyaabaha hay'addu ay ka shakido loo qaado laab ku yaala dalkaasi sutaga Imaaraadka Carabta isla markaasina halkaasi lagu soo baaro tayadiisa. waxyaalihii ugu waaweynaa ee noo qabsoomay ka xafiis ahaan ama ka hay'ad ahaan waxa kamid ah inaanu baarnay warshado kala duwan oo dalka gudihiisa ku yaala Hargeysa, Boorama, Burco ku kala yaala kuwaas oo baarnay oo ay kamid yihiin biyaha oo kamid yihiin kuwa foodska fudud soo saara ama soft foodska waxa la yiraahdo chips waxaas ay kamid tahay soo saara ayaa kamid ah waxyaalihii ugu waaweynaa ee sanadkan noo qabsoomay oo baaritaan ku sameynay kadib baaritaanada aan sameynay kuwa aanu ka shikino oo aanu isniraahno waxa u baahan tihiin in dibadda loo diro ama si laab lagu soo tijaabiyo si dadka isticmaalaya kalsooni uga helaan waxaanu sameynaa duwi baan u dirnaa inta badan 90% aanu shaqadeeda u gudanayna shaqada qarankan loo yimaday ah inaan bilaadanka reer Soomaaliland waxyaalaha isticmaalayaan tayadooda ka ilaalino waxa kamid ah biyaasha kala duwan ee loogu isticmaalka badan yahay tusaale ahaan magaalada Hargeysa oo ah biyaha la cabo ilaa hadda waxaanu baarnay 6 biyo oo kala duwan oo ka soo baxa Hargeysa iyo goboladaba kuwaas oo xaqiiqatan aad iyo aad ugu kalsoonaanay in la isticmaali karo bilaadanku isticmaali karaan waynu ognahay waxyaalaha wadanka dibadiisa laga keenayo caanayaasha iyo sharaabka iyo bariiska iyo waxyaalahaas oo dhan kamidka ah in iyaga laftirkooda u baahan yihiin in la baaro laakiin waxa ku tala jirnaa insha Allah bismillaahir kariim sanadka dhamaadkiisa in laboratory-gii hawsha qaban lahaa oo madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi yagleelayo kaasi oo Hargeysa iyo Berberaba laga yagleeli doono bismillaahir kariim aakhirka sanadkan oo miisaaniyada noogu jira waxaanu dhawaan Cigaal International Airport ka qabanay dawo herbal ah oo la yiri waxa loo isticmaalayaa dadka prostate gland-ku uu problem ka gaaro ama saqaliinada lagu sameeyo taasi oo gabi ahaan baa hakinay gacantana ku hayna ilaa intaanu baaritaan qoto dheer ah ka gaadhaynana aanu gacanta ku haynayno hadii aanu ogaano in waxaasi dadka dib ku yahay waxaanu ka qaadi doonaa talaabo sharci waafaqsan. ugu dambeyntina waxa uu dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u diray fariin ah in ay la wadaagaan waxyaabaha ay uga shak inay dhaceen isla markaasina ay la soo xiriiraan hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay waajibaadkeeda uga gudato. waxaanu dadka u sheegaynaa waxyaalaha qaldan ee ay arkaan ee kamidka ah waxyaalaha isticmaalayaan hadii date-kooda ama quality-kooda ay ka shakiyaan in xafiiska si toos ah ugu xidhnaan karaan oo u iman karaan ugana faa'iideyn karaan waqtigooda iyo in ay nagala shaqeyn karaan waxyaalahaas si aan anaguna ganacsatadii iyo cidii waxa ku lugta lahayd talaabo sharci uga qaadno oo aanu u ganaaxno oo aanu baaritaano dheeraad ugu sameeyno kadibna aanu saxno waxa ka qaldan si dadku ugu kalsoonaan karaan. Abdulqaadir Abdullaahi Nuur, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.